بسم الله الرحمن الرحيم aad baan ugu faraxsanahay kulankan oo ku faraxsanahay la fadhiyo walaashay Mariin Qaasim iyo wasiir Omar walaalkay waa maalin qiimo leh aad baan u bogaadinayna ugu mahadnaqaynaa ra'iisul wasaaraha Roble iyo golihiisa xukuumadda inay maalintii ceebeed ee golihiisa wasiirada xukuumadii khayr iyo farmaajo 2017 ay gaadhay halgamaan qalbi dhagax lagu dhiibay ururka oo rafnaa loogu calaamadiin argagixisay yahay intaas meesha ay ka baxday go'aan taariikhi buu ahaa go'aan taariikhda galay weeye wuxuu ahaa go'aan ceebeed go'aan gunnimo ahaa waxay ahayd nabar weyn iyo boog weyn ummadda Soomaaliyeed ku taala siyaalo badan baa loo gulgishay arintaas inay maanta meesha ka baxday waa bogaadinaynaa walaashay Mariin Qaasimna aad baan ugu bogaadinaynaa maalinta tooshka inay noo waday iyo hadaladeedii taariikhiga ahaana dhowr jeer korona ka hadalana waa xasuusanahay arintan waxay hoosta ka xariiqaysaa arin weyn oo la xiriirta arintan oo la xiriirto laakiin badan ma Soomaalidu ka hadlin oo ah qadiyada la xiriirta yaa Soomaaliya yaan ahayn qadiyada citizenshipka waxaan haynaa maanta minidkii baan haynaa doodii golaha wasiirada iyadoo qoran baa maanta la hayaa qof walba wuxuu yiri waa qoran tahay doodan isalka waxay ku haysay qadiyad ah qadiyada citizenshipka oo wali golaha wasiirada taala laba jeer anigu waan hor istaagay markii aan wasiirka arrimaha gudaha ahaa xuduudaadkii la doonayay ninkaan lagu sheegay inuu Soomaaliya ahayn loo cuskanayay laguna doodayay qadiyadaasi horta halkaas iyadoo salka ay ku haysaa waxay kaloo salka ku haysaa arintan waxa weyn oo Soomaalidu tahay Soomaalidu siyaasaddu waa ka weyn tahay calan kasta hoos joogto dawlad kasta ha joogto laakiin Soomaalinimada iyo siyaasaddu waa laba wax oo kala gedisan marka wuxuu ahaa go'aan gunnimo ah lagu degdegay taariikhdana muujinaya khalad kasta oo la galo maalintiisa in laga daba tagayo oo raadkii la isku daba soconayo maanta waxa la gudboon madaxweyne farmaajo oo wali xafiiska sii jooga ra'iisul wasaare khayre oo shalay arintan dirqinayay in ay ummadda Soomaaliyeed hor yimaadaan magdhow siiyaan dadka ay u gafeen xuduudaar weydiistaan dadka Soomaaliyeed ka hor wareegaan way tan khiyaamahay marka hore waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan rabay inaan idin la wadaago dareenkayga oo aan soo dhaweynayaa kuna bogaadinayaa go'aankii gobonimada lahaa iyo geesinimada oo shalay mudane Prime Minister Roble iyo golihiisa ay ka gaareen qadiyad soo jireen hayd oo golihii wasiirada aniga iyo wasiir Juxa oo yak fadhiya iyo wasiir Omar